بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waxaan jeclaystay inaan waxoogaa hambalyo iyo dardaaran aan kasoo jeediyo. waxaan hambalyeynayaa oo aan ku bogaadinayaa socdaalkay ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo ugu ambabaxay gobolada bariga jamhuuriyadda Somaliland. waxaan leeyahay madaxweyne aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay xoogaal noqoshada iyo kurgalka arrimaha dalka oo dhan bariga galbeedba. waxaan kugu bogaadinayaa socdaalkaaga qiimaha iyo qaayaha badan leh aad hadda ku sugan tahay gobolka Togdheer oo aad ugu kurgalayso xaaladaha dhaqan dhaqaale iyo duruufo nololeed ee bulshada Somaliland ay ku dhaqan gobolada bariga. waxaan rajeynayaa inaad kasii socon doonto haddii Allahu ka dhigo. waxaanay taasi meesha ka saaraysaa waxyaalihii ay kuwa beenta iyo propagandada wada ee odhan jiray madaxweynuhu Hargeysa ma dhaafi karo. waxaan leenahay ku quuso quraanjo shacabka Somaliland iyo madaxweynahooduba si wada jiro meel kasta gobol kasta iyo degmo kasta oo jamhuuriyadda Somaliland ka tirsan isugu soo dhaweynayaan, isugu xog wareysanayaan, isugu laab xaadanayaan, isugu danayo duruufo sheeganayaan. marka waxaan leeyahay qoliyii waraaqaha meelaha la warwareegi jiray ee odhan jiray madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mandate ma haysto, madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Hargeysa kama bixi karo, madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland jigjigeer ma dhaafi karo. been baan leeyahay la qabay. madaxweyne waa kaa uu kasii soconayaa, sool buu tegayaa, sanaag buu tegayaa, dhammaan gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Somaliland buu soo marayaa. shacabkiisuna si niyad iyo qalbi saafiya leh ayay kusoo dhaweynayaan. ku quuso quraanjo baan leeyahay qoladii meelahan la warwareegi jirtay ee ka caadaysatay inay dacaydayso qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo cadowgeenan aynu dariska nahay ee waxaa propagandadeena iyo jeclaan jiray tafaraaruqeena. waxaan leeyahay waxaa waxba kama jiraan ishii bugtaay ku bukaaso. waxaan hambalyo iyo bogaadin aan usoo jeedinayaa bulshada reer Somaliland gaar ahaan ku dhaqan hooyada Somaliland, hooyada duuxareynta iyo hormuudka iyo halganka jamhuuriyadda Somaliland, xarunta gobolka Togdheer magaalada Burco iyo gaar ahaan gobolka Togdheer oo dhan iyo degmada Oodweyne dhammaan reer Togdheer oo dhan. waxaan leeyahay hambalyo 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 hambalyo. waxaan ku hambalyeynayaa sidii geesinimada lahayd ee wanaagsanayd shucuurta wadaniyadeed ay ka muuqatay ay u soo dhaweyseen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, taasoo ku noqotay fallaan cadowga Somaliland, taasoo ka turjumaysa madaxweynuhu maadaama uu yahay astaan qaran idinkuna ahaydeen hooyadii jamhuuriyadda Somaliland sidii ay u soo dhaweyseen ee qiimaha iyo qadarinta lahayd ee midnimada lahayd ee isku duubnida lahayd ayaan idinku hambalyeynayaa. waa sidii laydinku yaqaanay, waa sidii weligiiba ay yeeli jirteen. halaa kasii wada baan leeyahay. gobolada kale lama tiidin, idinku waxaa tii dhashay jamhuuriyadda Somaliland waana ka jawaabteen. aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shacabka Somaliland. madaxweynaha Somaliland wuxuu ku sugan yahay haatan gobolka Togdheer uu ka wado mashaariicuu dhagax dhigayo iyo mashaariicuu uu furitaankeeda ka qayb galayba. aad baad ugu mahadsan tahay. mashaariicda uu jeelka weyne kow ka yahay garoonka kubadda cagta ee Alamsey Stadium baa isagana dhagax dhigtay. aad baan kugu hambalyeynaya iyo kuwa kalaad wato. marka madaxweyne waxaan leeyahay aad iyo aad baan haddaa shacabka Somaliland shacabka gobolka Togdheer kugu hambalyeynayaan mashaariicda ayadaa aad ku hirgelisay khaasatan gobolka Togdheer garoonka Alamsey Stadium. aad baan kugu hambalyeynaynaa. waxaan rajeynaynaa taarbuuka inta ka dhimanna inaad isagana dhammaystirto. fariinta ayada waxayso aan kaga wakiilahay oo horena aan ugaga wakiilahay baaqaygii kasoo jawaabtay bahda sportska ee gobolka Togdheer. waxaan ugu leenahay madaxweyne aad baad u mahadsan tahay. baaqaygii horena waad ka jawaabtay oo garoonkii roogii waa la dhigayaa. taarbuuka inta naga dhimanna waad noo dhammaystiraysaa. waxaan mar kale kugu baaqaynaa madaxweyne adigoo mahadsan inaad airportkii Burcana aad noo dhagax dhigto oo aad dhismihiisii noo bilowdo oo aad dib u furto ayaanu ka rajaynaa. waad ku guuleysanaysaa. ilaahayna ha kula garab gala baan leeyahay. aad iyo aad baan
mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweynaha u hambalyeynaya jamhuuriyadda somalilan waxaan kusoo dhaweynaya gobolka togdheer waxaan leeyahay hambalyo shacabka somalilan ku dhaqan gobolka togdheer waa hambalyeynaya hore u socon walay madaxweyne ilaa iyo sanaag iyo soolna gaar baan ku leeyahay saasuu shacabka somalilan diyaar kugu yahay aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu